hay soo dhawaad saaxiibayaal kuna soo dhawaada season kale oo aad u xiiso badan muuqaalka laagsar waa canshuur kaliya kuugu leeyahay sidoo kale kusoo biir janaalka haddii aadan weli kusoo biirin waxaa saaran wadadii aa ku gaari lahayn 100 kun oo saaxiibo moas oo ugu dambeetii soo laabtay weliba la soo laabtay season kale oo aad u xiiso badan waxaa rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan dhammaantiina sidoo kale seasonkii inuu socday asiga oo dhan waa isku soo wada dhejin doonaa oo hal mar ayaa soo wada dhigi doonaa qaybihiisa oo dhan dhammaantiin waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak ilaahay khayrka ramadaankan hana waafajiyo dhammaanteena haddana aan gudagalna muuqaalkeena bilowga muuqaalka waxaana la baryaa laba gabar oo saaxirin ahayeen kuwaasoo noolaayeen in ka badan 900 oo sano labadaasi gabar mid ka mid ayaan waxay jeclaanaysaa wiil bini'aadan ahay calashan wiil sida Mohas oo kale u qurux badan ayaa ka wada aydan waxay go'aansanaysaa inay dunida bini'aadanka ay ku soo biirto si ay asiga u hesho midaasin dhab ahaantii saaxiibteeda Ivan ayada kuma aysan qanacsaneen hasaatee ugu dambeetii waxa dhacayso gabadhii saaxirada iyo inay isguursadaan maalinkii uu guurkooda u dhacayna dhab ahaantii Ivan ayada kelinimo ay dareemaysay saaxiibteeda ayaan waxay ku dhacaysaa adiga xitaa haddii aragto aniga bini'aadan waa ka dhigi karaa laakiin dhabaantii midaas Ivan ayaa ka soo horjeesanaysa weliba ayadoo ku dhahayso aniga marow bini'aadan inaan noqdo maxaa yeelay ayaga waa dad daciif ah weli waxa huwaala ayay ku dhahaysaa inay xilli hore ee geeriyoodaan weliba dhulka ay firaaqeeyaan anigana waxa ahay saaxirad weyn weliba aanan dhimanaynin marka maxaan aaga baahanaa ayay ku dhahaysaa inay bini'aadan aan noqdo maalinkaas wixii ka dambeeyna labadoodaba laba jiho oo kala duwan ayay kala qaadayaan oo Ivan muddo dheer kelinimo ayay ku nooleed weliba ayadoo ka dhex qaraabanayso bini'aadanka dhexdiisa intaas wixii ka dambeeya waxaana la barayaa atoora filimkeena kaasoo yool lagu magacaabay asagana waxa uu ahaa weeraryahan aad u halis badan laakiin weli aanan fursad u helin inuu kubad uu heer sare uu ka gaaro maalinkaasna isaga iyo saaxiibadiis garoonka training ay ku sameynayeen waxa joogay indhindheeyaal kuwaasoo rabay inay meesha ciyaarto ay kala baxaan weliba ay ku daraan tiimka qaranka ayagana dhabaantii waxay indhaha ay ku hayeen yool maxaa yeelay asiga si wanaagsan ayuu u ciyaarayay marna ayagoo ammaanayan waxa maqlaya tababaraha asagana ammaanta la ammaanaya yool aad ayuu aagu xumaanaya wuxuuna ku dhahaya asiga halkan waxba kama ahan kubaddana marow ayuu ku dhahaya inuu la qaybsado saaxiibadiisa maxaa yeelay keligiisa ayaa isku rabo waxa idin wanaagsan ayuu ku dhahaya ninkaas oo lagu magacaabo Siyan idinkiina indhaha ku heesaan maxaa yeelay asiga waa qof aad u wanaagsan waxaana laga yaabaa inuu idin anfaco Siyan asiga waxay saaxiibo ay yihiin yoolwan ciyaaryahanka labaad ee ugu wanaagsan kooxda inta badanna macalinka Siyan ayuu caawiyaa maxaa yeelay aabiis ayuu lacag ka qaataa waxay noqotaa yool waxa dhacayso inuu dhaliyo gool dhammaan dadka meesha joogeen ka wada yaabisay gooshaasina dhab ahaantii tababarihiisa aad ayuu aagu xumaanaya meeshii loo baahnaana in lagu abaalmariyo gooshaasi waxaa dhacayso yool asiga in lagu inqaabo waxaana lagu dhahayaa adiga yaa dhali ku dhahay gooshaasi ma waxaa rabtaa inay indha-indhayaashan ay ku wataan weliba ay ku geystaan qaranka halkaanina aysan cidna ay ku soo harin yoolna asiga famil faqiirin ayuu ka soo jeeday taasi ayaana sababtay macalinka inuusan daneynin asiga intaas wixii ka dambeeyna waxaana la barayaa ganacsadahan oo Lion lagu magacaabo Lion waxaan ogaanaynaa asiga iyo laba qandaraaslayaal kale inay ku dagaalamayeen mashruuc aad u weyn mashruucaasi oo ku baxayo 10 trilyan qof walbana wuxuu rabay in mashruucaas uu asiga uu gacanta uu ku dhig weliba midaas ayuu u dagaalamayay tarabalkii gaariga ku wadayna asiga raadiyaha ayuu daminayaa asigana wuxuu ka xabsanaa inuu maamulihiisa uu ku qaaliyo taasoona u sabab ah asiga inuu diirada uu saari waayay wadista gaariga sidaas ay tahay asiga wuxuu ku siganayaa inuu gaariga uu dad uu ku qaado waxay noqotaa ugu dambeyn Lion waxa la keenayaa halkii uu kalfadhiga uu ka dhacayay halkaasina waxa iskugu imaanayeen marti sharaf aad u qiimo badan kuwaas oo rabay inay u codeeyaan saddexda qandaraaslayaal mid ka mid ah sidoo kale waxaan ogaanaynaa Lion asiga shaqaalayaashiisa inuu si xun oo la dhaqmo asiguna ugu awood sheeganayo inuu lacag uu leeyahay wax walbana uu ku xalin karo lacagtiisa muhiimadiisa ugu weyn waxay ahayd asiga qandaraaska inuu gacanta uu ku dhigo si uu dhammaan dadka uu tuso in lacagta wax walba ay qaban karto wax walba ay u maleeyaan in lagu iibsan karin weliba lagu iibsan karo wixii aatoo ugu dambeeyay howlwadeenadii ayaa waxay bilaabayaan inay hawsha isku dabaridaan laakiin silan filan projectiga meesha yaala waxa ka soo muuqanayso saaxiradii weynada ee Ivan qolada farsamadan ayaga waa ay la yaabayaan sida ayada ay midan ay ku awooday intaas waxa ka dambeeyay dhammaan dadkii howlka joogeen ayada meelka ay ka wada qaadaysaa mikrofoonka ay qabsanaysaa dhammaantoodan waxay u sheegaysaa inay u codeeyaan Lion markii ay dhameysay hadalkeeda ayna waxay tuusinaysaa Lion waxayna ku dhahaysaa waxa rabaa inaa hore ii raacdo habeenkaasi yool ayaa arkaynaa asagana xilligaasi xaafadiisa ayuu u sii socday laakiin silan filan wadada wuxuu ku arkayaa ayaydiisa oo ku dhibaatoonayso gaari qashin saarnaay intaas waxa ka dambeeyna gaariga ayaydiisa asiga ayaa ka soo qaadaya oo wuxuu bilaabayaa inuu soo riixo tanina yool waxay asiga ay fursad u siinaysaa ayaydiisa inuu u soo bandhigo goolkii galabta uu dhaliyay sidoo kale wuxuu la wadaagayaa khidmadii lacagta ee laga siin jiray naadiga asiga hadeerta in loo kordhiyay laakiin dhabaantii waxaan ogaanaynaa yool asiga midaas inuu been uu ku sheegayo lacagii uu ka qaadan jirayna naadiga waxba kuma aysan kordhin hasaate asiga ayaa wuxuu helay shaqo delivery shaqadaasina wuxuu aaga shaqaynayay si lacagaha billaha ee asiga ee soo galayo uu u kordho markii uu shaqada uu deliveryga uu soo dhameeyana asiga garoonka ayuu soo maraya halkaasina wuxuu kula kulmayaa Siyan oo keligiisa training sameynayo intaas wixii ka dambeeyna yool asiga wuxuu go'aansanaya inuu la xifaaltamo Siyan labadoodaba halkaas ay in badan ay ku ciyaarayaan kubadda walow Siyan laga xirfad badnaay asiga maadaama tababarkan asiga laga adkaadeen wuxuu go'aansanaya inuu yool uu cunto uu ku casuumo yoolna Siyan ayuu ku dhahayaa adiga
adiga dhab ahaantii waqti aad u wanaagsan ayaa haysataa sidoo kalena qoyskaaga lacag ayay leeyihiin ayuu ku dhahayaa waxaana loo baahan yahay fursadaada inaad ka faa'iidaysato aniga run ahaantii ma awoodo inaad tababarka maalin walba soo xaadiro maxaa yeelay ayadii way xanuunsantahay anigana waxaa u taaganahay soo dhicinta nolol maalmeedkeena taasina adiga jaanis ayay ku tahay waan igaaga faa'iidaysan kartaa ayuu ku dhahayaa weli waa iiga wanaagsanaan kartaa laakiin weli waxaa aaminsana ayuu ku dhahayaa xirfadda aniga aan leeyahay inaan kaaga fiicnaan karo adiga dhinaca kale waxaa arkaynaa Ivan iyo Lion Ivan ayuu ku dhahayaa aniga midan waa aamini la ahay sidee macquul ku tahay ayuu ku dhahayaa anigoo taajir ah weliba laga wada yaqaano magaalada inaan qof sidaan aan loo cunteeyo Ivan dhab ahaantii ayada midaas ayay ka xanaaqaysaa Lion asaga weli ma uusan deynin inuu dadka uu ku jaajeeso weliba lacagtiisa oo ugu faana asagoo bahdilayo hasaatee habeenkaasi Ivan ayaa cashar lama ilaabaan u dhageyso kadib markii ay ka soo wadatay halkii uu joogay weliba ay keentay meel aanan cidna joogin waxayna bilowday ayada inay garaacdo weliba si ay rabtay ay ka yeeshato halkaasina sidoo kale waxay ugu muujinaysaa ayada inaysan bini'aadan ee ahayn weliba lagu jeejeesi karin ugu dambeyntiin waxay ku dhahaysaa lacagta adiga haysato keliya waa warqad anigana awood ayaa leeyahay haddii lacagtaas ay isiiso waa ku caawina haddii rabana kuma caawinayay marka jooji kibirka ayay ku dhahaysaa weliba adigoo bini'aadan liito Ivana ayada hadalka iyo waanada way u soo gabagabeynaysaa maxaa yeelay ayada waxay ka soo horjeeday akhlaaqdeeda inay wanaagsanaato weliba ay isku bedesho bini'aadan markay ka soo dhamaysatana ugu dambeyntii fadhigiisa ay dib ay ugu soo celinaysaa anagana waxaan ogaanaynaa Ivan ayada inay la shaqaynayso Lion isla markaasina Lion xogaayiisa ayaa soo wacay wuxuuna u sheegayaa inuu noqday guuleystaha qandaraaska maalinka xiga Ivan ayaa arkayna ayadana waxay imaanaysaa meel supermarket waxayna rabtay inay halkaas alaab ay ka iibsato lacagta ay rabtan inay alaabta ay ku iibsato waxaan ogaanaynaa inay tahay lacagta ay ka soo qaadatay Lion laakiin dhab ahaantii ayada waa ay ku caajisaysaa intay halkaas ay joogtay maxaa yeelay cidna lama aysan soconin meeshan waa ay ku wareertay laakiin silan filaan gabar aad u qurux badan ayay arkaysaa intaas wixii ka dambeeyana ayada miirka oo dhan ayay ka bedelaysaa si ay ugu shaqaysato calaashan waxaa ka wada si ay alaabta halkan ay ka qaadatay ee ugu xamaasho ayada weliba oo la dooqdo wax walba ee ayada ay rabto markay dhammaan ay soo adeegatan waxyaabihii ay rabtay meel maqaaxo ay imaanayaan halkaas ayayna bilaabayaan inay ku cunteeyaan weliba ay ku sheekaystaan xaliimadan kalena waxaan ogaanaynaa ayada Ivan inay ogtahay inaysan bini'aadan ee ahayn maxaa yeelay hore ayaa loogu soo sheegay Ivan ayaana waxay ku dhahaysaa dhab ahaantii idin sida bini'aadan u tihiin fikir qaldan ayaa ka aaminsan tihiin geeri la'aanta sababtoo ah adduunka aadanaha si dhaqsile ayuu isku bedelaa weliba ayaga ee adduunka ay aaga tagaan ayay ku dhahaysaa laakiin aniga waa iska noolaanaa weliba inta aan rabnay in ka badan hadda iyo jeerna waxaa jira ayay ku dhahaysaa wax cusub oo xiise leh weliba aadan idinka ogeyn mid idinka mid ahna markii uu ku geeriyoodo 60 sano asaga ma ogaan karo gadaashiisa waxa soo baxay si ay u dareensiisan nolosha wanaagsan ee ayaga ay ku nool yihiin waxay dib ay u celinaysaa 1930kii ayadana 1930kii waxay baranaysay luuqadda Ingiriiska laakiin waxa ku adkaanaysa ayada inay la qabsato macalimadii xilligaasi luuqadda Ingiriiska baraysay sidoo kalena ayada 1970kii waxay jecleed buugaagta inay akhriso marna buug ay akhrinaysa ay qalad ku arkaysaa ayadana qoraagii ay u tagaysaa waxayna ku dhahaysaa qoraalkama inaad dib u habaysaa si uu u noqdo mid akhriskiisa lagu raaxaysto sidoo kalena 1990kii ayadu waxay ahayd mid jecel geemka waxayna ilmaha ee xilligaas ay la ciyaari jirtay geemka laakiin ilmaha ayaga maadaama ay aaga faham badnaayeen dhankaas iyo geemka Ivan waxaa dhacaysa ayada xitaa inay guulaysan weyso hal ciyaar sidoo kalena sanadka 2025 ayada waxay ku mashquulsaneed daawashada muuqaalada uu Mohas uu soo khulaaseeyo maxaa yeelay waxay ka heshay siisoonada uu asaga uu soo khulaaseeyo kuwaasoo ahaayeen siisoona aad u xiiso badan weli aysan cidna ay hore u soo khulaaseynin dhinaca kale Siyan ayaa arkaynaa asagana saaxiibkiisa Yol ayuu u soo iibinayaa kaba aad u wanaagsan maadaama uu asaga uu kubadda cagta uu rajo uu ka leeyahay laakiin halkaasi waxaa dhacaysa Yol inuu imaado asagana markii uu ogaado saaxiibkiisa inuu rabo inuu kabaan uu iibiyo waa uu ka diidayaa intaas wixii ka dambeeyay silan filaan Yol iyo Ivan way isku dhacayaan Yolna markii uu soo kaco asaga Ivan ayuu weydiinayaa inay fiican tahay iyo in kale laakiin Ivan ayaa waxay ku dhahaysaa dhab ahaantii adigu waa iska weyn tahay laakiin waxaa tahay midka ugu liita ee dunida saaran isla markaasi Ivan ayada waxay arkaysaa qaybta mustaqbalka ee Siyan waxayna ogaanaysaa ayada Siyan inuu noqon doono mid kubadda cagta heer ka gaaray isla markiina Siyan ayada waxay gashanaysaa liiska dadka ugu fiican ee la raaci karo sidoo kale Ivan gabadhii la socotay ayaa waxay ku dhahaysaa anigana waxaa rabaa inaa howl ii qabato laakiin xoogaa qiimo dhimis ii samee ayay ku dhahaysaa hasaatee Ivan ayada gabadhii xusuus oo dhan ayay ka qaadaysaa waxayna ka dhigaysaa sidii ayagoo aanan isgaranaynin weliba aanan weligood kulmin isla markaasi Ivan halkii ay joogtay saaxir ayada ka weyna ayaa meesha ka soo baxaya wuxuuna ku dhahayaa adiga miisaankaaga dhab ahaantii hoos ayuu usii dhacayaa marba marka sii dambaysan wuxuu kusii dhawaanaysaa xilliga ay geeriyoon lahayd laba doorasho ayaa haysataa ayuuna ku dhahayaa ama noqo bini'aadan si aad u badbaado ama waxaa noqotaa habe khafiif ah weliba waxaa ka dhex baxaysa bini'aadanka oo dhan laakiin Ivan ayada midaas waa ay ka cagajiidaysaa weliba ayadoona cabsi aanan muujinaynin sidoo kale waxay ku jejeesaysaa saaxirka weynaa ee ayada informationka usoo gudbiyey ayadoona u sheegayso asiga iyo wixii soo dirayba inaysan garanaynin sidoo kale Yol iyo saaxiibkiisa Siyan ayaa arkaynaa ayagana xilliga training ay iska sameynayeen laakiin asaga weli Siyan waa laga akaay intaas wixii ka dambeeyay Yol asaga kubadda ayuu
si daran u laadaya oo garoonka oo dhan ayay ka baxaysaa. silan filaan kubaddaasi waxay ku dhexaysaa Ivan oo meesha maraysay weliba alaab wadatay. intaas wixii ka dambeeya Yol ayaa u imaanaya wuxuuna ka codsanayaa inuu kubadda uu kusoo xilwareejiyo, laakiin waxaaba dhacayso Ivan ayada kubadda inay dhulka ay ku dhufato. intaas wixii ka dambeeyana kubadda ee baqdo waxayna ku dhacaysaa adigu waa daalaysaa ma ahe mustaqbalka saaxiibkaaga Siyan ayaa kaa fiicnaan doono, asagana caan ayuu kubadda cagta noqon doonaa, weliba taajir ayuu noqon doonaa, adigana cidna kuma baran doonto. waxaana ku wanaagsan hadeerta in riyadaasi aa ka harto. dhinaca kale Lion iyo saaxiibadiis ayaa arkaynaa xilligaasina waxay u dabaaldegayeen Lion qandaraasyada uu gacanta uu ku dhigay. in badan uu halkaas u joogay kadibna ugu dambeyntii waa uu kasoo tagayaa halkaasi, laakiin silan filaan gaariga oo xabaaro sare ku socdo waxaa ku dhacayo Siyan. intaas wixii ka dambeeyana meesha Yol ayaa imaanayo, isagana wuxuu arkayaa Lion oo meesha kasii tagayo. ugu dambeyntiina saaxiibkiis iyo isbitaal keenaya si xaaladiisa caafimaad looga gaaro. intaas wixii ka dambeeyana wuxuu imaanaya saldhigga booliska si oo ugu caddeeyo Lion dembiga uu geystay, laakiin sarkaalkii halkaasi joogay asiga khiyaano ayuu sameynaya, isagoona isku dayayo qofkii gaariga Siyan ku dhuftay inuu yahay qof kale. qofkaasina qof kale ma ahan ee waa darawalka Lion, gacanta ayaa kusoo dhigan ayuuna ku dhahayaa. Yolna isaga mida zaid ayuu aaga doodaya. halkaasina wuxuu ku ogaanaya darawalkaas inuusan waxba u galabsanin, laakiin amuuro ka tanweyn ee jiraan. Lion asigoo ka cabsanaya wixii uu sameeyey mar kale Ivan ayuu la xiriiraya, wuxuuna ka dalbanaya xaaladda hadeertan taagan inay wax ay ka qabato. Ivan ayada markii hore waa ay ka diidaysaa oo waxay rabtay inay qaadato fasax 10 sano, laakiin markii uu qiimaha uu kor u kordhiyay ayada waa ay aqbalaysaa inay caawiso, laakiin isbeddel lama filaan ayaa dhacaya oo waxay ogaanaysaa mustaqbalkii wanaagsanaa ee Siyan ay u arkaysay in lagu soo bedelay Yol, weliba uu asaga uu noqonayo ciyaaryahan caan ah weliba guulaystay kaasoo adduunka oo dhan laga yaqaano. isla markaasi Ivan ayada waxay soo xasuusanaysaa saaxirkii weynaa ee shalay toole ee la kulantay, kaasoo u sheegay ayada awoodeeda inay hoos ay u dhici doonto. intaas wixii ka dambeeyana ayada waa ay soo xeesaa Yol ayaana qabanayo. xilligaasin labadoodu waxay joogeen isbitaalkii uu Siyan u joogay. muuqaalkeena qaybtiisa koowaadna halkan ayuu inoogu eg yahay. waa soo laabtay muuqaalkan like saara si dhayli ayaana usoo fasixi doonaa qaybaha dhiman. janaalkana kusoo biira waxaa saaran wadadii aa ku gaari lahayn 100,000 oo saaxiibo. sidoo kale sheergareey muuqaalka uu la wadaaga saaxiibadiina. intaan kaga kulmanana muuqaalkan muuqaalka xiga. nabada.